kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada asxaabta maanta waxaan sharxi doonaa filim cusub oo lagu magacaabo SAS Red Notice. Subscribe share channelka si aad ula socoto qaybaha dambe ee soo dhigi doono. Filimkan waa filim aad u dheer, saas ilaashiligeed waxaan ka dhigay laba qaybood, waatana qaybta koowaad ee daawasho wacan. bilowga filimka wuxuu ka bilaabanayaa halkan gabadhan hortiina ka muuqato waxaa lagu magacaabaa Isbareet, waxay la socotaa aabaheed, labadoodu waa laba madax balse waxaa la shaqeeyaa ciidanka faraha badan ee gaariga gadaal ka saaran. Waxay u socdaan howlgal inay meeshan ka soo fuliyaan. Markii ay yimaadaan bishinkii lagu talagalay waxaa u imaanayaa nin kale oo asaguna taliya, balse taliyahan waa ciidamada booliska taliyahooda. Ninkanna waa nin kale asaguna gangeyster balse arrimo kale ay ka wada hadlayaan. Kadib dhammaantood way soo baxayaan si ay shaqadooda u gutaan. kadib howlgalkoodii ayay hore u wadanayaan. Nin ayaa dhaawac ka soo gaaraya balse ninkii markii ay doodaan dagaalkoodii ayay hore u wadayaan, carrada xabad ay ka dhigayaan. Balse gabar ayaa si qarsoodiya video ayay iga duubaysaa, iyagu waxaa ma oga, carrada dhan way gubayaan, wax walba ay arkaan dab ayay ku furayaan. Markaas videogan waa laga duubay, iyagu waxaa ma oga. ninkan mootaalaha waxaa lagu magacaabaa Thomas, wuxuu la shaqeeyaa ciidamada booliska ee wadanka. Wuxuu hadda u socdaa inuu la kulmo taliyihii ciidanka oo uu rabo inuu kala hadlo arrimo gooni u ah. taliyaha ciidanka wuxuu u dhawayaa alaab qaali ah ayuu farta ka saarayaa oo wuxuu rabaa alaabtan inuu ilaaliyo, kadibna mashin ayuu u dirayaa. fideogii gabadha ka duubtay ayaa meel walba dhigaya, saxaafadaha iyo sawiradooda ayaa meel walba lagu dhajinayaa si loo qabto nimankan tuugada ee wadanka qalad ka gelisay. meel walba ay joogaan ayaa dowladda la ogeysanayaa, balse ciidanka booliska taliyayaashoodii waxay ka soo saarayaan go'aan si loo saqbo lahaa nimankan. sidoo kale gabadhan waa doctoreso, waxay saaxiib la tahay Thomas, balse Thomas wixii dhaawac soo gaara iyada ayaa ka dhigtaa. ninka Thomas ahna kadib shaqadiisa ayuu qabsanayaa, iyaduna farmashiyo ayay ku haraysaa, markaas awleeda kale ayay qabsanaysaa. halkan gabadhii iyo aabaheed khaladkii ay galeen ayuu fideogii ayay ka wada hadlayaan si ay u badbaadi lahaayeen, arrintooduna ay u xalin lahaayeen. gabadha iyo aabaheed waxay isku raacayaan inay isqariyaan oo magaalada ay ka dhuntaan. Thomas markan hawshiisa ayuu wataa, wuxuu ku jiraa baaritaan. gabadhan iyaduna waa jaasuusad, waxay rabtaa inay dowladda qalad ka gasho. kadib gabadhan waxay wataa qori ayaa xabadka u jira. kadib gabadhii intuu cirbad ku dhufto ayuu ka baxayaa, qorigii kala soo bixinayaa, wuxuu la xiriirayaa dowladdii, wuxuu leeyahay gabadhan wejigeeda ma taqanin, la soo qabto. kadib gabadhii ciidan ayaa loo soo dirayaa, qol guriga dhan ayaa la weerarayaa. markii guriga la weeraro kadib bomba ayaa lagu tuurayaa meeshii. bombadii waxay saameynaysaa ciidan, balse gurigii ayay weerar ku qabanayaan. guriga erdaha markii ay xirtaan, erdaha dhan ayay soo jabinayaan si ay guriga gudihiisa usoo galaan. balse ninkii odagii videoga laga duubay ayaa markaan la qabtay. waxaa la wacayaa taliyaha ciidanka ayaa la wacayaa. markuu taliyaha ciidanka u yimaado sheeko fara badan ayay ka wada sheekaysanayaan. wuxuu rabaa inuu meeshan isbaagamuudeeyo oo qaladkan uu ka badbaado. iyagoo meesha fadhiya oo waxba la ogeyn ayaa ninkii odaga ahaa ayaa wax lagu dhufanaya xabad. qof aysan wejigooda aqoon ayaa xabad ku dhufanaya, balse ninkii xabad ayay ku dhufanaya, isagana bombo ayuu meesha ku qarxinayaa. saasna waxaa lagu ganaaxayaa oo meesha looga saarayaa taliyihii ninkii la shaqeynayay ayaa la ganaaxayaa oo shaqada waa laga saaraya. kadib Thomas iyo saaxiibkiis shaqada laga fariisiyay way soo raacayaan labadoodii. Thomas ayaa waxa soo gaaraya dhaawac. gabadhii ay saaxiibsa ayuu u laabanaya doctoressada ahayd, balse gabadhii ayaa wax walba ka dhayaysa oo caafimaadkiisa ka fakaraysa. labadoodu waxay ku tashanayaan inay israacaan oo dalxiis ay u aadaan dalka Paris. markii labadoodu soo raacaan oo tiidka soo qaataan waxay imaanayaan tareenka ay raaci lahaayeen. markii kursigooda fariistaan ayaa waxa shakinaya Thomas, wuxuu raadinayaa gabadhii loo soo diray isagoo howlgalkiisa ku jira, balse gabadhu weji kale ayaa maskara ee ugu jira. shaqaalaha tareenka ayaa meesha u soo galaya, kadib way dilaysaa, balse ninka Thomas wuu ka shakinayaa meesha. wuxuu raadinayaa qolkii suuliga ayuu soo goobanayaa, balse wuxuu arkayaa irid furan. kadib iridii darba ayuu ku dhufanayaa. markuu arko nin meyd oo meesha yaala ayuu arkayaa. wuxuu la xiriirayaa saaxiibkiis oo jooga xaruntii, wuxuu leeyahay meeshan ayay joogtaa gabadha Isbareet aan goobayno, sidaas loo ogaado taliyahan u sheeg. kadib taliyihii ciidan ayuu soo dirayaa si meesha loo ogaado. kadib gabadhii waxay sameynaysaa inay ciidanka soo dhex gasho shaqaalaha tareenka. kadib waxay sameynaysaa inay tareenkii afduubato. ninkii daruurka tareenka ka ahaa ayay dhammaantiis u dhammaynaysaa, balse waxay rabtaa markaan inay tareenkan afduubato. meesha tareenka laga socday ayaa la ogaanaya in tareenka la afduubtay. kadib waxaa la ogeysanayaa ciidanka dhan oo magaalada, balse gabadhii gurmud ayaa dalbanaysa oo ciidamo kale fara badan ayaa u imaanaysa si tareenka dhan ay ula wareegto. kadib ninkii Thomas ahaa wuxuu ogaanayaa in meesha dhan la soo galay, qiic iyo waxyaalo fara badan ayuu dareemayaa. banaanka ayuu soo aadayaa si uu u ogaado in meesha waxyaalaha ka socda oo dhan. banaanka markuu yimaado cidna wuu arki weynayaa. asxaabtii kalena ay gabadhii ciidankeedii tareenka ayay gudaha u galayaan si tareenka amnigiisa wax walba ay ugala socdaan. ninkii Thomas asagoo hawshii gudanaya oo tareenka waxa afduubtay goobaya, asxaabtii kalena uu la xiriirayo ayuu si lama filaan wuxuu ku arkayaa
nimankii ciidanka ah oo tareenka afduubtay. Kadib wuxuu is leeyahay ka baxso, balse meeshii ayaga dagaal ka bilaabanayaan xabad ayay meesha qabsanaysaa. Rakaabkii tareenka saarana khasaare ayaa soo gaaraya, balse asagoo gudaha ayuu soo gelayaa. Wuxuu ogaanaya in tareenka la wareegay. Wuxuu wacayaa asxaabtiisa kale, balse waxaa leeyahay qof walba meeshu fadhiyo yuusan ka dhaqaaqin, taleefanadana waa laga arurayaa. Balse ninkii Thomas ahaa hoos qaybta hoose ee tareenka ayuu ka baxayaa. Tareenka hoostiisa ayuu seexanayaa, ciidanka kalena way weynayaan. Kadib wuxuu wacayaa saaxiibkiis oo jooga ciidankii xarunta booliska. Wuxuu leeyahay meesha ay dhiban yihiin gabadhii wixii dhammaa, balse nimankii tuugada ahaa qof walba oo isku daya inuu meesha ka baxsan maago oo ay dilayaan. Saas ayuu ula socodsiinayaa. Dhammaantood wuxuu u sheegayaa in meeshan uu socdo, balse si qarsoodi ayuu gabadhii video uga duubaya. Wuxuu u dirayaa xaruntii booliska, balse taliyihii ayaa la tusayaa. Kadib taliyihii ayaa go'aan ka soo saaraya. Wuxuu u dirayaa ciidamo fara badan ayuu u dirayaa, balse ciidamadii markii ay arkaan in la soo diray, gabadhiina waxay la hadlaysaa ciidankeedii. Waxay leedahay isdiyaargaree, meeshan waa ka baxaynaa. Dhanka kale ninkii Thomas ah wuxuu ku jiraa weli tareenka hoostiisa ayuu ku jiraa. Xadabado fara badan ayay ku furayaan. Halkan ayuu ku dhumanayaa, weliba halkan ayuu xog fara badan ugu dhiibayaa ciidamadiisii. Kadib gabadhii saaxiibtiisa ayuu telefoon u dirayaa, balse waxay leeyahay telefoonada dhankeena gabadhu waa qarsanaysaa markaas telefonkeeda. Kadib ninkii ciidamankii ayaa loo diray fiidiyowyadii. Markan baaritaan weyn ayay sameynaysaa maadaama uu ku jirta meesha gabadh dhakhtarada gabadhuna waxay saaxiib la tahay Thomas, balse ninka Thomas asagu weli hawlgalkiisa ayuu ku jiraa. Balse gabadhii markii banaanka la keeno waxaa imaanaya nimankii gurmadkii ayaa imaanaya. Gurmadkuna dhammaantood waxay kusoo darayaan aeroboortka gadaalkiisa. Gabadhiina waxaa looga baahan yahay in meeshan ay gabar daaweyso. Kadib nimankii ciidankii ayaa meesha soo galaya. Gabadhiina waxaa la geenayaa dhanka dambe ee qolka. Kadib waxaa leeyahay gabadh dheertaa daawey, balse nimankii ciidankaana gudaha ay u soo galayaan meesha wadada. Ciidamaduna waxay isku diyaar garanayaan si ay meeshan ula wareegi lahaayeen, balse nimanka taliyayaashii ayaa wax soo saarayaan go'aan si meeshan loola wareegi lahaa. Waxa dhan meeshan ay hubkooda keensanayaan. Kadib waxay ciidankii ayay tala siinayaan. Waxay leeyihiin meeshan la wareega. Kadib ninka Thomas tareenka hoosta isagoo ku jira ayuu saaxiibtiisa wuxuu u dirayaa fariin. Kadib waxay ka arkaysaa meesha hoose ee tareenka ka dilaacsan yahay. Markaas wuxuu leeyahay waxaan ka rabaa inay meeshan ka soo badbaadin, balse gabadhii ayaa ku dhawaar adeegaysa. Waxay leedahay meesha aniga ayaan joogayaa, ma ka baxayo. Kadib wuxuu leeyahay gabadha yarta ii soo dhib, adiguna halkaas isa uga badbaadin. Kadib gabadhii yartayd ayuu meeshii godkeed ay uga dhiibaysaa. Markii meeshii godka ay uga dhiibto waxay leedahay anigana meesha waan ku harayaa oo meeshan ka bixi maayo. Kadib afkaygu wuxuu u dhafanayaa qoray si ay meesha ay ugu suxdo. Nimankii ciidankana meesha ay gudaha soo galayaan, balse meeshii wax ka bilaabanaysaa xabad ayaa markan ka bilaabanaysaa. Nimankiina banaanka ay u soo galayaan, waxay arkayaan meeshii gabadhii la afduubtay. Ninkii Thomas sidaas ayuu meesha uga badbaadaya. Gabadhii yartaydna waa u wadanayaan, balse nimanku inta shakiyaan waxay leeyihiin meeshan waxaa soo galay qofka ina gobna waaye. Kadib waxay ogaanayaan in qofka meesha uu ku jiro ciidankan uu ka dheerayn. Kadib ninkii Thomas gabadhii hoos ayuu ka bixinayaa asagoo waxa dhibaato gaarsiin. Qaybta dambe ee tareenka ayuu kala baxayaa. Kadib nimankii ciidanka halkan ayuu dhow yihiin. Waxay rabaan in tareenka ay dadka badbaadiyaan. Asxaabay filimka qaybtiisa koowaad halkan ayuu ka egtaa. Insha Allah qaybta kale waxa soo gali doonaa maalinta xigta. Asxaabay idinkuna muuqaalkan like saara una share gareey asxaabtina kale. Insha Allah inta muuqaalkan muuqaalada ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.